dugsiyada nuuraddiin schools بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa maxamed axmed xuseen dhammaan ardaydu meel kastoo ay ku sugan tahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkii inooga sii socon doona casharadeenii habtabinta ahaa ee tooska aan ugu tabin jirnay waxaynu bilaabaynaa maanta chapterka labaad fasalka toddobaad qaybta loo yaqaano maahmaahayada ama qaybta loo yaqaano maahmaaha waayahay maahmaahyo ama maahmaaho cutubkaasaynu bilaabaynaa waa cutubka labaad waana cutub aad u qiimo badan waayahay ardayda intaynaan haddaba bilaabin waxaynu doonaynaa inaynu si wadajira uga jawaabno adigoo adna ka diyaar garoobiyo buggaagii qalinkaaga oon markii qura kala qaadaynin waxaanu doonaynaa inaynu ka jawaabno su-aalaha halkan ku qoran su-aalaha halkan ku qoran waxay ibafur yihiin ama ay barbilow yihiin maahmaahda ama maahmaaha soo socda ayay barbilow yihiin tusaale su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa waa maxay maahmaahi waa maxay maahmaahi waxaanu ku jawaabaynaa inagoo dhinacyo badan ka eegayna maahmaahdu waa hadal kooban oo xikmad ballaadhan xambaarsan maahmaahdu waa hadal kooban ama urursan oo xikmad badan xambaarsan maahmaahdu waa hadal kooban oo xikmad ballaadhan xambaarsan had iyo jeeraale maahmaahdu waxa ay ku jirtaa ama ay ka mid tahay suugaanta abka soo gaadhka ah abka soo gaadhka waxaan uga jeedaa suugaanta la kala dhaxlo suugaanta la kala dhaxlo waxaan uga jeedaa suugaanta jiilba jiil u gudbiyo had iyo jeeraale maahmaahda cidda samaysay lama yaqaanee waxaa la yaqaanaa habkiiyo hanaanka loo adeegsado waay taasi intaasaan kaga gudbayaa waxaan jecelahay intii aan ku celcelinayay inaad adiguna aada hoosta ka xariiqatay murtida iyo maahmaahdu maxay ku kala duwan yihiin waa su-aal kaloo iyadana meesha taalla kol haddaan ku idhi maahmaahdu waa hadal kooban oo xikmad ballaadhan xambaarsan had iyo jeeraale maahmaahda cidda samaysay lama yaqaanee habkiiyo hanaanka loo adeegsadaa la yaqaanaa cidda samaysay lama yaqaana waxaan uga jeedaa macnihii waa suugaantii abka soo gaadhka ahayd oo aniga halka hore kusoo sheegay ama waa suugaanta la kala dhaxlo murtiduna waa odhaah kooban oo falsafad dacalka ku haysa waa odhaah kooban oo falsafad dacalka ku haysa had iyo jeeraale halkii maahmaahda aan ka odhanayay cidda samaysay lama yaqaane waa suugaanta abka soo gaadhka ayay murtiduna tahay waa suugaan la curiyey oo kooban oo had iyo jeeraale lama kala reebo murtida iyo cidda samaysay lama kala reebo tusaale ahaan oo kale adduuni khatal aadan galay dani waa seeto ducaalo suldaan saa dambaad garan dhalin ileeye ninka curiyey iyo iyada laftarkeedii ama murtida laftarkeedii lama kala reebo laakiin maahmaahda waxaa la dhaha soomaalida waxay ku maahmaahday weli miyaad maqasheen ardee iyadoo la leeyahay hebel baa wuxuu ku maahmaahay may soomaalida waxay tidhaahdaa 300 sano hadday jirtiyo maalin hadday jirtiyo sanad hadday jirto iyadoo waa suugaantii la adeegsadano bulshada lagama xigo waaye kaalintee ta saddexaadna bal u fiirsada arday kaalintee ayaa ay maahmaahdu kaga jirtaa dhismaha dhismaha af soomaaliga waxa ay kaga jirtaa kaalinta ugu sarreysa waana habka ugu fudud ee wax la isku fahansiiyo iyadoo oo dhacday la barbar dhigayo dhacdada markaasi taagan si dadka loo fahansiiyo macnihii dhacdadan taagan ayaa waxa la soo qaataa dhacdo hore waxa la yiraahdaa arrintan sidaynu u fahanno tusaale ahaan oo kale arrin baa dhacday arrintii iyadoo la gorfaynayo ayaa maahmaah lagu soo daray maahmaahdaasi halkaa kamay curanine qisa hore oo dhacday oo laakiin tan la mida oo la saro la dhaca oo la dhugmaa oo la aragtiya ayaa inta badan lagu macneeya waay goorma bal taafraad fiirsada arday goorma ayaa la adeegsadaa maahmaahda
mahmaahda waxa la adeegsadaa qisadii ay ku tumi ama ay ku curatay mid la midii maalintii timaadaba way cusub tahay tusaale ahaan oo kale nin baa waxa dhacday beri qiso yar baan idinka sheekeynaya nin baa waxa dhacday oo mahmaahada la xidhiidha nin baa waxa dhacday beri isagoo suuqa bartankiisa gaadhiga wata ayuu ku yari dhagax ku dhuftay gaadhigii dabeetana niman baa gartii galay gartii markay galeen ayaa waxa la yidhi waar adigu dhagaxa ma ku dhufatay markaasuu yidhi haayo dee isba hoonku igu tumay hoonku igu garaacay dabeetana waxa la yidhi nin baa dabeetana gartii galay dabeetana wuxuu u tegay ninkii gaadhiga quruxda badan wato wuxuu ku yidhi hebel waa miskiin yare iska daa hortoo dembigii oo dhan wada qaado waaye dembigii oo dhan markuu wada qaato weliba ku yidhi waa miskiin yare si ilaahay hantidaada kugu barakeeyey lacag yar soo sii dabeetana ninkii baa yaabay dabeetana wuxuu ku yidhi maalin intaan dembigii saartay ayaad weliba lacag shaydaanka iska naaro soo sii dabeetana wuu soo sii lacagtii buu dabeetana kiraa miskiinka ha u geeyey wuxuu ku yidhi hebel horta dembigii waan wada saaray waaye lacagna weliba waan kaaga soo qaaday dabeetana lacagtii intuu saa u qaaday ayuu dabeetana yidhi ar hebel waan garanayaa intan imuu soo dhiibine adaa dhexda u galay dabeetana ninkii baa yaabay hadda ninkii uu lacagta ka soo qaaday dembina wuu saaray lacagna wuu ka soo qaaday dabeetana hebelo waa ninkii dhexdhexaadinayo suuqa bartankiisa maraya ayay dabeetana niman ku yidhaahdeen waryaahe arrintana ogaa dushaa kala socday arrintii ma dhammaysay dabeetana dabada kamuu soo gelin oo muu soo wada koobine wuxuu yidhi midig iyo bidix midna kuma taagni midig iyo bidix midna kuma taagni macnihii kana gar kama haysto kana garowshiya kama haysto kana waanu kala dhimanno intaan dembi saaran weliba lacag ka soo qaado kiina markaan lacagtii u geeyaanu dembigiisa dabeetana midig iyo bidix midna kuma taagni qisadaasay ku dhalatay haddaba mar kasta oo tusaale ahaan oo kale qof baa laba ciyaala islaayey dabadeetana labadii ciyaali markay islaayeen ayaa dabeetana istiri kala qabo dabeetana kii la fuushanaabaad kor uga qaaday dabeetana waxaa ku tiri xaggeed ninka feerka ula dhacaysa dabeetana wuxuu ku yidhi kii la fuushanaayo la dilaya baa ku waryaha ninka sidaad leedahay ha dilin adigu xaggeed ninka u tuurtuuraysa baleeg adigii buu dembigii ku saaray dabeetana waxaa odhanaysaa midig iyo bidix midna kuma taag waa mar kasta oo labadii arrimoodeed ku dhex jirtay midna aanad guulka haysan ayaad isticmaalanaysaa mar kasta waaye qisadaa yarna waxaan tusaale ugu soo qaaday si aad u fahantaan in mar kastoo qiso ay dhacdo maahmaada ku timaada in mar kastoo qisadaasi qiso la midii markay dhacdaba la adeegsado waaye maahmaahada ta koowaad ba laynuu galo waxay ku odhanaysaa habar fadhida legdini wax uga fudud ardayay la soco habar fadhida legdini wax uga fudud habartu maaha tii legdamaysay laakiin waxaa looga jeedaa habartuba iyadoo fadhida ayay afka ka talin kartaa oo ka socda ee xoogga weyni arrin iyo ra'yi aanu keeni karin ayaa waxaa keenaya qofka fadhiya ee itaalgabay ilaan caqligii buu leeyahay balo fiirsho buuggeenuna waa ka inoo sharxay wuxuu yidhi waxa ay maahmaahdani ina tusaysaa inaanay habartu ahayn qofkii legdamayey inaanay ahayne laakiin tala ahaan ay afka si fiican wax uga odhan karto nuxurkaynu uu doonaya inaynu gallo nuxurka maahmaahdu waxa weeyaan aad ila soco nuxurku waa intaa aan kuu calaamadiyey weeyaan ardaye waaye nuxurka maahmaahdu waa qofka arrin ku dhex jira iyo kan dibadda ka jooga in aanay culaysku arrintaasi inaanay culayska isku si aanay u arkaynin tusaale ahaan oo kale adoo hawl haya oo hebel hawl kuu dirtay ayaa dabeetana hawshii wuxuu ku yidhi 1 saacadood ku dhammee dabeetana wuu ku yimi halkii saacadood adigoo kala badhba aan joogin dabeetana markaasuu ku canaantay isagoo hawsha dibaddu ka jooga laakiin hawshii adigaa ku jira adigaana fahmaya culayska leedahay dabeetana saad odhanaysaa hawsha sidaad moodaysa maahee habar fadhida legdini wax uga fudud macnihii hawsha kaalay gal si aad ila aragto dabeetana wuxuu yidhi nuxurka maahmaahdu waxa weeyaan waa qofka arrin ku dhex jira iyo kan dibadda ka jooga inaanay culayska arrintaasi leedahay isku si aanay u arkaynin isku si uma arkayaan waayo halkaa inaad fahanteen baan ardayay aan u malaynaya ta kale waxay ku odhanaysaa abeeso dhulu eeki ayay kugu dishaa abeesadu halmuceedka ama ujeeddaday xambaarsantahay waxa weeyaan macnihii waxa weeyaan masas fara badan oo kala midaba ah
oo suntoodu kala khatar badan tahay laakiin aad iska arkayso waad ka baydhaa suryaday jiifaan waad ka baydhaa laakiin abeesadu ciidda ayay ku nooshahay ciidda ayaanay cuntaa sidaa la arjigeed waxaanay u ekaataa dhulka dabadeetana adoo habeenkii iska gudaya ayuunbaad qori jilaboo jidka kuu jiifa ay ka tallaabsuunbaad soconaysaa dabadeetana way ku qaniinaysaa inta badan abeesaduna way khatar badan tahay maahmaahdu waxa ay leedahay sunta masas badan waanigii kuu sheegay oo midabo muuqda leh oo la arki karo waad iska eegtaa laakiin abeesadu waxa ay kugu cuntaa midabkeeda ciidda u eg ayay kugu cuntaayo iskama arkaysid baa looga jeeda maahmaahda waxa ay nooga digaysaa inaynaan u indhala-aanin waxyaabaha ay khatartoodu hoosayso arday waa dulucdii halkaas waa dulucda ama ujeeddada ay xambaarsantahay maahmaahdu inaynu eegmo dheeraada iyo feejignimo dheeraada inaynu u yeelano waxyaabaha khatartoodu ay hoosayso ee aan la arki karaynin ujeeddadii aniga kuu calaamadiyey arday waay ta ku xigta aanuu galo wuxuu yidhi nin aan warankaagu gelin ama nimaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho weedhaadu ereygaagu ama raygaagu weedhaadu macnihii raygaaga ama ereygaagu ama odhaahdaadu ma gasho macnihii ma qaato waxaa looga jeedaa hadba weedhaadu waxay culays leedahay inta adiga lagaa cabsado oo tusaale ahaan oo kale qof aan hoodhba kugu qoysanaynin qof jiraba kuu arkaynin dee ra'yigaaga ma qaadanayo oo hadba ra'yigaagu ama odhaahdaadu waxay culays leedahay inta uu qofkaasi kaa cabsoonayo ilmaha yar tusaale ahaan oo kale ee guriga jooga hadduu aad kaaga cabsanayo lagama yaabo waxaad ku tidhaahdo inuu baal maro laakiin haddii uu waa hebelo waxba arrinkiisa ka soo qaadin hadduu adigaba aanu ku aaminsanaynba inaad wax dili karto ama aad yaro casayn kartaba haddaanu aaminsanayn odhaahdaada iyo taladaada iyo raygaaga midna ma qaadanayo oo waa biyo culdhaansho buu ka dhigay waay maahmaahdani waxay ina tusaysaa in hadba inta awooddaada haddaa halkaa u fiiriso inta awooddaada maahmaahdani aan weliba kuu calaamadiyo waxay odhanaysaa maahmaahdani waxay muujinaysaa in hadba inta awooddaadu la-eg tahay uu ereygaaguna qofkaa aad la hadlayso weeyaane uu saamayn ku yeelan karo ama saamayn ku leeyahay qofka haddaanu kaa baqanaynin qofka haddaanu inaad jirtaba aanu garanaynin macnihii weedhaaduna ma qaadanaya dee waay waxaa looga jeedaa haddaba in qofka aan waxba iskaga kaa tirinayn waxbaba iskama kaa tirinayo inaad jirto iyo inaad joogto waliya bilay ka tahay inaanu kala ogeyn inaanu hadalkaagana dhegaysanaynin ama aanu dheg jalaq u siinayn waynu wadaynaa arday waad ila socotaa baan filayaa waxaan u gudbayaa maahmaahda kusii xigta oo odhanaysa ayaxtag la reeb ama eelna reeb ayaxu marka uu dhulka ku dego waa noole weeyaan ayax duulduulo inta badan beeraha ayuu inta badan ayuu ku degay ayuu saamayn ballaadhan u geystaa haddaba ayaxu marka uu dhulka ku dego dalagaana wuu cunaa oo dalagaasi wuu mariyaa markuu mariyana ee uu ka duulayana ukuntiisii ama wuxuu kaga tagaa halkaasi dhashiisiibuu halkaasi kaga tagaa dabeetana waxay noqonaysaa ayaxii dhibaatada kuu geystay ayaa haddana dhibaato kaaga tegey dabeetana waa dhibaato ka tagtay ayaynu ku macnaynaynaa waaye ayaxu marka uu dhulka ku dega haddaba waxa uu kaga tagaa ukun ama beed waa dhashiisii moogta waa dhaliisii ukun ama beed mar damba dilaaca oo dhasha mar damba dilaaca oo waxyeelo geysta haddaba mar damba dilaaca oo waxyeelo geysta ayaxu halkan haddaba wuxuu ugu jiraa eeg ujeeddadii baynu kagu gelinay ayaxu halkan wuxuu ugu jiraa waxa uu ama ugu jiraa ama uu taagan yahay qof meel baneeyey qof
meel baneeyay haye meesha markuu baneeyay talow ma wanaag buu kaga tagaya maya dhibaato kaga tagaya ama waxaan la jeclaysan laakiin meeshii kaga tagay hawl qabyo badan oo aan dhamaystirnayn ama wax kaga kala tagay balo fiirsa halka laakiin meeshii uu ka tagay laakiin meeshii uu ka tagay kaga tagay hawl qabyo oo aan dhamaystirnayn ama uu wax kaga tagay ama uu wax kaga kala tagay macni qof aad hawl u diratay hawshii uu aad u diratay muu dhamaystirin ee qabyo kaga tagay tusaale ahaan oo kale qof aad hawl u dirsatay ayaa hawshii waxa uu ka tagay hawshii oo qabyo isagoo guri ku dhisay uu deetana jiingadii sare isagoo saarin ayuu dabeetana ka tagay dabeetana ayax tag ee la reeb waxa looga jeedaa waa dhibaatada ayuxu uu wato oo ka tagtay dhibaatada ukuntiisa oo hadhow toolo dilaacayso beertii hadday ku bixi lahayd haddana waxa dilaacaya ukuntii iyo beedkii ayaxa dabeetana waa dhibaato ka tagtay haye dhibaatooyin badan oo aan la xallin karin dhibaatooyin badan oo aan la xallin karin ta ku xigta ayaynu u gelaynaa arday waxay ku odhanaysaa keligii tashade karaamo ma leh keligii tashade waa maahmaah dhiiri gelinaysa in la wada tashado oo wax la wada rogrogo oo wax la isla eego keligii tashade karaamo ma leh maahmaahdani waxayna tusinaysaa qiimaha uu leeyahay wada tashigu wada tashi wax isweydiin wax wada rogrogis isla eegis oo inta badan waxa la yiraahdaa waxyaabaha la isla eego go'aan waafiya ka soo baxa laakiin waxyaabaha aan la isla eegin in la rogrogin garaadkaaga 50% inaad waxaasi ku guul dareysato iyo inaad ku guuleysataa oo 50% oo 50 laakiin waxyaabaha la isla eega ee la isla rogrogay dhinacyada laga fadhiistaa 80% wax guuleysta ayuu dhawaada wuxuu yiri dabeetana maamad waxay odhanaysaa maahmaadani waxayna tusaysaa qiimaha wada tashigu uu leeyahay qiimaha wada tashigu uu leeyahay waxa ay dhaleecaynaysaa qofka aan dhageysan dadka kale dhaleecaynaysaa ay cambaaraynaysaa ay dhaliilaysaa cambaarayn ama hadii jeeraale ay wax ka sheegaysaa waxa ay dhaleecaynaysaa qofka aan dhageysan dadka kale iyada oo xusaysa sida ay natiijada go'aanadiisu u yihiin kuwa aan midho dhal lahayn waxa looga jeedaa kuwa aan guuleysan hal muceedku waa intaan ku calaamadiyay ama ujeedada ay xambaarsan tahay kuwa aan guuleysan waxay dhiiri gelinaysaa wada tashiga waxaanay dhaleecaynaysaa qofka keligii go'aanka qaata waayahay ta ku xigta ayaynu arday u gelaynaa waxay ku odhanaysaa fagaaraha ayuu yimaadaa macnihii faq waa waxyaabaha hoos loo dhigaya ee nuxnuxda aan la fahmaynin ee labadaa qof ama qof ay kaliya isla og yihiin ayaa fagaaruhu yimaadaa macnihii dibadda u soo shaabaxa maahmaadani waxay xambaarsan tahay murti kooban oo tilmaamaysa wixii dad aanad u hubin aanad u sheegin wixii dad aanad u hubin u sheegin macnihii waxaanad hubin aad u sheegtaa ee aad damacdo inaad sir ka dhigto macnihii waxaanad hubin ayaa dad u sheegaysaa dabeetana waxaad is odhanaysaa waxaasi ma fahmayaan dadku u sheegtaa adiga oo sir ka dhigaya ama sir ka dhiganaya aanu sinaba u qarsoomaynin oo waxaasi uu soo shaabaxayaa markiiba waayahay
ta ku xigta aynu u galno geel laba jir soo wada mar geel laba jir soo wada mar macnaheedu waxa looga jeedaa qof kasta marxaladda dhalinyaranimo uu soo mara qof kasta marxaladda dhalaanimo uu soo mara laakiin marxaladda uu soo maro wuxuu ka qaataa waayo aragnimo ka qaataa maamaadani waxay inoo tilmaamaysaa in dadku ay soo maraan marxaladda caruurnimo isla markaana ay ka helaan waayo aragnimo nololeed sidoo kalena haddii ubadka yaryar isku dayaan inay khiyaamo waalidka kula kacaan uu waalidkuna garan karo waxa ay maagan yihiin waa damacsan yihiin wuxuu ka oranayaa salaano kale ilmi yaraabay si waalidkii khiyaamadan uu dhigayo waalidkaba waalidku uu garanaya dabeetana wuxuu oranayaa shalaa dhalatay waa la shubi jiray waxaan waan soo maray bari hore ayaan soo maray ta ku xigtaa waxay odhanaysaa haani guntay ka tolantaa haani gunta ayay ka tolantaa waxaa looga jeedaa arrin waliba sal iyo barbilow ayuu leeyahay haddaad doonayso arrinkaasi inuu guulaysana maahmaah bay la macnatay maahmahdani odhanaysa ooda dhacameed siday u kala sarraysaa loo kala gura ooda dhacameed siday u kala sarrayso ayaa loo kala gura macnii arrin waliba siduu u kala horeeyo ayaa macnihii loo bilaabaa loona dhammaystiraa waayo maahmahdani waxa inoo tilmaamaysaa ama ina tusaysaa in arrin waliba uu leeyahay barbilow wale wanigii kuu sheegay inuu leeyahay barbilow isla markaana loo baahan yahay in marka hore la barto barbilowga in la barto si arrintaa loogu guulaysto waxa ay ujeeddada maahmaahdani ay la mid tahay ama maahmaadii odhanaysay ayay la mid tahay ooda dhacameed waanay kuu sheegay ooda dhacameed dhacantu waa ooda ugu weyn ee geela lagu ooda la dhacan ooda dhacameed siday u kala sarrayso ayaa loo kala guraa waa ood aad u culus dabeetana ta hoose haddaa israa soo qaad waa qalad weeye ugu dambayn ardayay waxaynu ka shaqaynaynaa layliskaas idinkaa ka soo shaqaynaya taa koobaad oo keliyaan idinka shaqaynaya inta kale adaa ka shaqaynaya weliba si taxadir leh ninku arkaaya qaybtaas waad isla doonanaysaa moogtahay waad isla doonanaysaa looma sare joogsado ama looma sare kaco ninku arkaaya looma sare joogsado ama looma sare kaco si taxadir leh uga soo shaqee oo weliba hubsiima ay ku jirto weliba lexe jecle ay ku jirto oo ay soo dhan dee gurigii baa joogtahay dee waxaan waxba kaama gelin macnihii aduu isxilqaan halkaasaan kusoo gabagabaynaya casharka dhammaantiin waan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu